السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برادة المرجينيا كسو دوادا قايبتي شنهاد شاكدي نوفمبر وحينو مريسي هابينكي تانكسجيفنكا عشادي يدو إنانتي يدا أهيد جاز inkastoo uu Jane u yaqaano Travis ay si kadis ah cashadii kaga soo qayb gashay kadib markii iyadoo magaalo kale ku socota Thanksgiving-ka ugu socota uu baraf ba'an da'ay dabadeetna ay ku khasbanaatay inay soo noqoto oo ay iyaga la cashayso maadaama uu yarka walaalkii soo casumay naxdin ay ku noqotay arintaas way muufilaynin uu iska nabayay dhowr weekba inuu barto dhalinyarada oo dhan walaalkii la shaqaysa mar walba excuse wuxuu ka dhiganayay iyo marmarsiinyo diyaarun ayhi weli inaan cidna barto mawjadda xusuusta iyo calilyowga ayaan dhex jibaaxayay bal horta waqti iyo rasi habeenkii markii ay indhaha isku yara dhufteen isagu wuxuu isleeyahay way ku ogtahay waayo dee warqad bay kuu soo dirtay laakiin waxaanu ogeyn in warqadan ay inamadii eeriyada ka tegay oo dhan ay u dirtay seem warqad ay u wada qortay waa sida ay dadku sameeyaan mabay garanaynba inamada midkoodna laakiin waxay ka qayb qaadatay warqadihii loo ururinayay dhalinyarada frontline-ka iyo dagaalka ku jirta ee had iyo jeer intaa gaajada u qaba war inay ka helaan dhulkii ay ka yimaadeen dadkoodii weliba dadka ugu sii badan ay jecel yihiin inay wax ka maqlaan waa strangerska dad aanay aqoonin adigu cashadii laysu yara dhiibdhiib layska cashee layska qusqusol marba iyadu waxay ag fadhidaa yarka walaalkiisa dilan ila isagaa soo casumay indhahay marba isagiyo iyadu isku yara dhuftaan Travis hoostu indhaha kaga yara xadxadaa marba yarka walaalkiina he's mesmerized by her caashiq waad aragtaa inuu caashiqsan yahay gabadhan iyadiyo Travisna hoosta iska yara eegaan yarka kalena iyadii buu mashquul ku yahay marba roodiyar soo qabo mar greenska soo qabo saladku soo yar dhiib maxaan kuu dhiibaa maxaan kuu soo qabtaa maxaan saasuu u marxabaysiinaya ila waa naf wax jecel halkii Travis sheekadiisu waxay noqotay sir ma qabee raxmaanu adiga usame waxba maan samaynine bambam marararararan xoogaa markii adigu wax la cuncunee la iska yara qosqosle la iska yara sheekaystay maaragtay miiska iyo tableka farxad baa ka muuqata waqti aad u farxad badan weeye Thanksgiving-kii oo sida madiibaduhu isu dhaafayaan ana taay dhiib adna tan hoo ana taay intii dadna xoogaa markii cuntadii la dhameeyay ayay islaantii boodayda iyadaa dadka hoos garaynaysa way boodo markaasay tiri waqtigii macaankaa la gaadhay macaankii baa soo dhigdhigaya markaasuu ka daba booday hooyadii yidhi hooyo I will help you oo ku caawinaya markaasay ku tiri maya horta anaa ku yara filanaya adigu iska yara fadhiiso oo iska yara sheekayso markaasuu yidhi haye waan soo yara noqonayaa banaanku u yara baxayo xabad sigaaru la soo baxayo markaasuu markuu isiirshido ayuu soo xusuustay hooyadii hadalkii ay ku tidhi ahaa waxaan moodayay inaad iska daynayso markaasuu gacanta iskaga sii qabsaday intuu layrarkii
jeebka gashado iska xiraystay sigaarkii ayuu halkaa cabaar gacanta ku haystay jabaq buu maqlay inantii baa kasoo daba baxday Jazz markaasay ku tiri hello Travis right Travis soo maahayn magacaaga markaasuu yidhi haa markaasay tiri so you're the soldier askarigaa tahay soo maaha welcome home soo noqod wanaagsan markaasuu yidhi waad mahadsan tahay sigaarkii buu qaato halkaa dhegta dabadeedu sidaa u gashaday markaasay tiri I hope inaanan kaa soo dhexgelin malaa privacy yar baad u yara baahanta markaasuu yidhi no my markaasay ku tiri miyaad cabaysaa sigaarka markaasuu yidhi may inaan cabaan usoo qaatay laakiin waan ka kaafto maan iska daayay waxaan isku dayayaa inaan gooyo it's a bad habit xun weeye sweet markaasay tiri and I'm sorry walaalkaa wuu ii sheegay Dylan in dhalinyaro badan oo halkan kaala tagtay aanay soo noqonin markaasuu yidhi intuu hoos eegay waa astaamaha dagaalka waa iska adduunyo markaasuu yidhi magacaagi muxuu ahaa wuxuu ku rajo weynaa inay tiraahdo Jane weli wuxuu isleeyahay waa intaasaana iyadii ahayn inkastuu iska arko inay iyadii tahay laakiin haddana rajuu qabaa inaana iyadii ahayn laakiin haddana wuxuu leeyahay khasab haddaana iyadii ahayn sidan umaad sii eegteen sidan ugumaad waa iyadii waa lafteedii maskaxdiisa yari saasay marba dhinac ugaga keenaysa hadalka iyo muranka iyadiiba isla murmaysa qalbigiisa iyo maskaxdiisa isla murmay markaasay tiri my name is Jazz and magacaygu waa Jazz laakiin markaasuu yidhi oh I just waxaan mooday Jane inuu ahaa markaasay yaabta markaasay tiri Jane maaha magacaygu waa Jazz laakiin intay dib saa u yara egtay tiri farta saa ugu fiiqday did you get one of my letters isagu wuxuu moodayay warqadan inay specifically isaga usoo dirtay a special letter just for him markaasuu yidhi one of your letters maxaad ka wadaa waraaqahaygii mid ka mid aad heshay markaasay tiri well waraaqihii ugu dambeeyay halkan ka baxay 6 waraaqood baan idiin soo kala diray markaasuu yidhi waraaqo kala duwan mise seem warqad keliya miyaa iskugu xun baa ku qoraa markaasay tiri iskugu xun baa ku qoraa markaasuu halkaas beerka in tantooma lagaga dhuftay oo kale gabadhii uu islahaa adigunbay special ku ahayd oo adigunbay toos warqadaasi kuugu socotay warqadan inamadii areada ka tegay oo dhan bay u dirtay oo the different platoons ku kala jiray afar ka midii mabay soo noqon isagiiyo mid kalun baa kasoo noqday oo laakiin magaalo adigu ilaa 20 daqiiqo u jirta markaasuu sigaarkii intuu dhegta ka soo saaray shitay markaasay tiri are you okay markaasuu yidhi ama may warqadda anigu nasiiba maan yeelan maan helin imika way u caddaatay inay iyadii tahay laakiin sheekadu sidii uu moodayay ma aha
markaasuu ku yidhi ka waran shaqada cusub wuxuu igu yidhi Dylan dhawaan baad shaqada u bilowday markaasay tiri haa dhawaan baan u bilaabay gabadha keliyaan ahay tiimka ku jirta marka it's kind of nice I feel spoiled 5 nin baan la shaqeeyaa marmarka qaarkood way iga cadhaysiyaan waxba iima ogola aniguna waxaan bartay inaan maaragtay qof jecel inay maaragtay isku kalsoono isku filan baan ahay marka xoogaa way yara spoil garayaan laakiin sida kale shaqada aad iyo aad baan u jecelahay markaasuu yidhi shaqadan maxaad ku jeclaatay markaa inaad dadka tours geyso iyo fishing iyo maxaa what's so special about shaqadan cabaar bay sheekaysteenoo markaasay markii dambe ku tiri way u sheegtay waxay ku tiri outdoorskan iska jeclahay I love nature markaa inaan duurka iskaga maqnaado summer iyo winterba waan jeclahay iska duur joog baan iska ahay markaa one of my fantasies waxyaabaha aan ku maaragtay ku dream garay himiladayda ka mida waxaa ka mida inaan meel cidlaa keligay iska dego meelahaas waterfrontkaas lakeskaan keligay iska dego on lanyar iska iibsado oo aan container home ka samaysto waa markaan ugu farxadda badnahay markaan natureka dhirta iyo duurka iyo biyaha aan ku dhex jira aan maaragtay aan ag jooga iyo xayawaanka jabaqdooda aan maqlayo ama aan arkayo markaasuu intuu qoslay yaro ilka cadeeyo yaro qoslay bay tiri maxaad ku yaro qosasho markaasuu yidhi I feel like inaad aniga iga hadlayso weligayba aniga aanbad himladaydu saasay ahayd before I join intaanan militariga join garayn haddana weli rajadaydu waxa weeyaan container home inaan meelaha cidladaa ka dhisto it's funny markaasay tiri well I guess great minds are alike maskaxda fiican oo dhan baa I guess isku si wuxuu arkaa maskaxa fiican markaasuu yidhi I guess so waa runtaa adigu habeenkii sidii baa lagu kala tegay sariirtiisii buu tegay marba dhinac buu saa isugu rogay wuxuu ka fekeray how perfect ay isku ahaan lahaayeen haddii ay iyagu isel lahaayeen yaa isku dooq isku nolol isku himilo very interesting waxa usii caddaatay shaqada inaanu kaba shaqayn karinba kii walaalkiina intaa wuxuu ku riixayaa goormaad soo shaqo tegay 2 wiigoo kale ayuu marba sii riixayo ku lahaa wiig kale isii iyo 2 cishoo kale isii iyo 3 cishoo kale isiiyo finally kii yaraa wuxuu ku yidhi dee I need you waan kuu baahanahay dee waan mashquul baanu nahay meel waxaa jirta ku taala Montana oo webi weyn ahoo la yidhaahdo the glacier oo aad iyo aad dalxiiska loogu tago waqtiyadan oo kale October, November, December barafna ka da'o muxuu ahaa skiil lagu sameeyo dushiisa aad iyo aadna u qurux badan meeshoo dhammi ay wada resort iyo wada laydhadh iyo wada skiing iyo wada maaragtay just meel aad iyo aad u qurux badan aad iyo aadna mashquul ah markaad dad badan baa aad u yimaada intaasoo waa waqtiga ay ugu mashquulka badan tahay marka wuxuu yidhi dee ama qof baan hayr garaynayaa ama dee shaqada niyo soo bilow talaa ku caddaatay waayo iminka everyday waa inuu la shaqeeyaa gabadhii dooqiisu raacay ee riyadiisa ahayd
ee qalbiga uu ka daawanayay iminka in muddo ah, balse uu ogyahay inaanu taaban karin, u dhowaan karin, waxna ku darsan karin. shukaansina hadalkiisa badaa, waayo walaalkiis oo uu adduunka ugu jecel yahay ayaa jecel. Jazz ama Jane is his sister's girl now. inkasta oo aanay waxba weli ka dhaxaynin, oo kan yar ee baasina uu iska caashiqsan yahay gabadhan ee weli waxba aanu u sheegan. waxaasoo dhan ka sii daran dhulka ay mari doonaan, meelahay dadka geyn doonaan, quruxda iyo romantiga iyo dadka kabaliskee wada socda ee isa soo raacaya, iyo dee qalbiga sida ay u xadantayn doonto wada shaqayntani. haddana isagoo og inaanay weligii noqonayn gabadhiisii. inta walaalkii dee haddii ay walaalkii wax dhex maraan horta taa iyo gabadhu dee hadalkeeda badaa, laakiinse xataa haddaanay waxba dhex marin waa lama taabtaan. allahi wasta noqon waa torture qofaad jeceshahay oo laakiin haddana halkaa gangaaman qof kaloo jeceshahayna jecel yahay, aad ku khasban tahayna every day inaad wejiga ku dhufatid oo is aragtaan. sir maqabe raxmaanu fadiga usahame waxba maan samaynine bambam marararararam bambam hadday samadu furan tahay suuradaha quraan. ilaa iyo qaybteena dambe khayr iyo badhaadhaan Virginia, ilaa iyo kulankeena dambe noola kulanteen. qalbigaan kasii daawadaa, halkaasayna kasii daawan. sidaa iyo nabadgelyo. indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, waxaan yaaraga